السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. guutada dhimashada. Markii ay isku dayeen nus milyan ka mid ah gaaladii Ruum inay burburiyaan ciidankii muslimiinta kadib markii ay go'doon ka saareen dhinac walba, ayuu Ikrimah bin Abi Jahl qaatay seeftiisa, sidoo kalena wuxuu kala jebiyey galka seeftiisa. Wuxuu qaatay go'aanka ugu adag ee uu qaato qof bani aadam ah, kaasoo ah dhimasho. Kadib ayuu muslimiintu wuxuu ugu dhawaaqay cod u eg gugaca roobka, wuxuuna ku yidhi, muslimiina yaa igula ballamayo geeri. Isla markaas waxaa u soo baxay 400 oo naftood hurayaal geesiyaal ah si ay u sameeyaan waxa ay taariikhda u taqaano guutada dhimashada. Kadib Khalid bin Walid radiyallahu canhu ayaa isku dayay inuu Ikrimah ka celiyo inuu naftiisa haligo. Ikrimah ayaa soo fiiriyey Khalid isagoo wejigiisa iftiinka baxayo, wuxuuna ku yidhi, iga leexo Khalidow, adiga rasuulka Ilaahay waa iga soo horeysay. Ana rasuulka Ilaahay waxaan kula dagaalamay meelo badan, maantan ma waxaan ka cararayaa Ruum? Taasi ma ahan mid dhacayso. Isla markaas waxaa baxay guutadii dhimashada. Ruumna waxay la yaabtay libaaxyo ugaar u soo doontay dhankooda, rabana inay burburiyaan qolfoofta ay meesha isugu keensadeen. Guutadii dhimashadana mid mid ay ugu socotay dhankii Ruum. Ikrimah bin Abi Jahl siduu u socday ayuu dhex galay ciidankii Ruum si uu muslimiinta uga qaado go'doonka. Wuuna sameeyey oo go'doonkii wuu ka qaaday muslimiinta kadib markii uu burburiyey safkii Ruum isagoo raadinayo dhimasho. Isla markaas hogaamiyihii Ruum ayaa amray in dhammaan fallaaraha lagu gamo dhanka naftiisurahan geesiga ah. Ikrimah wuxuu ka dhacay faraskiisa, fallaaraha lagu soo tuuray badnaanteeda awgeed. Kadib Ikrimah bin Abi Jahl isagoo keligiis ah ayuu 10,000 oo gaalo ah dhexda u galay, isagoo weliba kula dagaalamayay seeftiisa. Markaas ayay gaaladii Ruum fallaarahoodii wadnaha ka geliyeen. Muslimiintana markay arkeen geesinimada Ikrimah ayay celin waayeen dareenkooda. Guutadii dhimashadana waxay u soo degdegeen dhankii Ikrimah si ay Alle dartii ugu dhintaan una oofiyaan ballantii ay la galeen Ikrimah. Gaaladii Ruumna way rumaysan waayeen waxay indhahoodu arkaan. Waxay arkayeen 400 oo mujaahidiin ah geeridana lugahooda ku doonanayo. Isla markaas Alle ayaa cabsi ku abuuray qalbiyada cadowga. Ruumna gadaal ayay u laabteen, orodna wayba awoodi waayeen. Takbiirta geesiyaduna way daba socotay. Guutadaas yarna waxay awooday inay muslimiinta ka qaado go'doonka. Khalid bin Walid radiyallahu canhu ayaa soo raadiyey in adeerkiis Ikrimah, laakiinse wuxuu arkay isagoo dhex yaallo 2 ka mid ah guutadii dhimashada, Al-Xaarith bin Hishaam iyo Cayaash bin Abi Rabiica. Dhiigna uu ka socdo saddexdooda. Al-Xaarith bin Hishaam ayaa dalbaday biyo. Markii loo keenay biyaha isagoon weli kaban ayuu arkay Ikrimah. Markaas ayuu qofkii biyaha u waday ku yidhi, biyaha sii Ikrimah, isagaa go'oon badane. Ikrimahna markii biyaha loo keenay wuxuu arkay Cayaash. Markaas ayuu qofkii biyaha u waday ku yidhi, biyaha sii Cayaash. Cayaashna wuxuu dhahay, ma cabaayay biyaha ilaa uu ka cabo walaalkaygii markii hore dalbaday biyaha. Al-Xaarith bin Hishaam ayaa loo soo celiyey biyaha, laakiinse waxaa la arkay isagoo nafta ka baxday. Haddana biyaha waxaa loo keenay Ikrimah, laakiinse waxaa la arkay isagoo shahiiday. Sidoo kale haddana biyaha waxaa loo soo celiyey Cayaash si loo siiyo, laakiinse waxaa la arkay isagoo nafta ka baxday. Alle raali ha ka noqdo dhammaan saxaabadii rasuulka ee geesiyada ahaa.